شيخ وحكى لي أمنية أنا مركين هذه شيء أفرت الشيء وشيخ وكى لي يدولد إن السيد يشقى السيد يسوى فصلته وعير وإن له سياسة دجن دولد إنه حيلا هاي تبلي هذا تبت السياسة دلورنية وكشقيسا سيدا دتك اللي سوق كنا سيدا دستور كلام ما يسترا سيدا أصحاب سياسة لو هذا سيدا أود غيب سيدا لوجا شقيا سيدا دتك الصوماليات مستقبل بقول كسرنا صوص عطوية شان أي كدر إيمان دولد يجو أي ودليهين شيء روح الناشئ إن لهلا أمن دقالة دولد إنه حيلا ذا تبت دقالها وكشقيسا سيدا دقالها لو كبعيا سيدا مصوماس ولا لا دقالة ما سيدا جناحتها يدولد اللي سوسو دويا سيدا هيدا دقالها دون الدب ولا فلقلا وعنا فهمسية مركا أمني إننا شقينين هدانو دقالة لهين وحكلونا فهمسية أمني إننا شقينين هدانو لهين سياسة لودنيا وحايس وافقسان قطبات الشيخ وهالكن كجيدين هاي شقادة الدولة ده طوبة فرادو نوشيغي او سيديبا الله إلاليا فكر كحجرك هاسو مردين شخص ده دولة ولبدت كيدا وحيكو كسبتا إني بحسو وحلا إرادة أديك أرما بلشو ناد سكولة ودستو isbitaallo u dhisto jidad u dhisto dadka Soomaaliyeed inay adiga ku dareemaan inaad tahay cid siinaysa adeeg ay xaq u leedahay si subax markuu qofku soo kaco oo uga dareemo amnigiisa uga dareemo nolol maalmeedkiisa uga dareemo noloshiisa mustaqbalka carruurtiisa sidaas daraadeed dawladuna waxay leedahay tub afraad oo ah tubta arrimaha bulshada taasoo macnaheedu uu yahay si dawladda ay dadkeeda u kasbato waa inay adeeg bulsho ay siisaa hadafyada dawladdeenu marka ay ka shaqeyso waxa ay ku qotontaa ma aha sanad ama 6 bilood waxay ku salaysan tahay kontonka ama 100 sano soo socda wiilashii iyo gabdhaha naga dambeeya waxaan rabnaa inay ka sii wadaan meeshaas waxaa la rabaa marka in la fahmo hal mid qof walba jooga xukunka maanta qof baa uga dambeyn doona su-aasha aan rabno inaan isweydiino waxay tahay haddii aad ra'iisul wasaare tahay intii aad joogto maxaad uga tagtay haddii aad madaxweyne tahayna intii aad joogto maxaad uga tagtay haddii aad wasiir tahayna wasaaraddaada maxaad uga tagtay haddii aad baarlamaanka tobnaad tahayna maxaad uga tagtay meeqa sharci ayaad baas garaysa qof waliba waxaa lagula xisaabtamayaa 4 sano uu joogo taariikhda uu ka tagay ugu dambeyntii marka waqtigeenu dhamaadana lama dhihi doono meeqa maalmooda muranteen yaa muranki ku adkaaday waxaana la kula xisaabtami doonaa maxaad dhisteen waxa kaloo la kula xisaabtami doonaa maxaad dumiseen waxaan rajeynayaa maadaama aan masaajidka ku jirno taariikhdoona inay xusto inta badan oo dhisnay waa mahadsantihiin